sulaadiin aqoon-yahano iyo waxgarad iyo sidoo kale xubno hore uga tirsanaa ciidamada militariga oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxay muujiyeen aragtidooda ku aadan saldhigga ciidamada militariga wadanka Imaaraadku ay danaynayaan inay ku yeeshaan magaalada Berbera iyo damaca xukuumadda Soomaaliland ee arintaasi ku aadan waxaana ay sheegeen arintaasi inay khatarteeda leedahay isla markaasina aan loo baahnayn xilligani in Soomaaliland la keeno ciidamada ajaaniba waa kuwan iyagoo amurahaasi ka hadlaya khatartan maanta aloosan ee saldhigga bayska militariga ee la bixinaya anigu aan sultaankii guud waxaan xasuusinayaa nin walba dalkan ku nool iyo ku dibad ku noolba maadaama hogaamiyaha bulshadnahay waxba laga weydiinayo haddii Turkiga uu yimidna waxbuu ka weydiiyay haddii Ingiriiska yimidna waxbuu ka weydiiyay haddii dawladkii kala dambeeyay marka aan koonfur la midownay ay tahayna waxa weeyaan waxba laga weydiin jiray dal iyo dadba maanta waxay nagu soo dhacday arin la tahriibinayo oo la leeyahay mar inay yar baa sita la leeyahay barna la leeyahay xukuumadda qayb ka mid ah baa sidata taasoo maanta aan ahayn waxyaabihii asaasiga ahaa tala qaran lagu gali jiray waxaan aad iyo aad uga xunnahay arrimaha masiiriga waa weyn qaranka leeyahay yacni aan laga wada tashan waa mashaakil waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa cid walba dalku maanta waa dal labdoon ma banaana in ciidamo shisheeye halkan dalkan la keeno amba geygan Soomaaliland la keeno heshiis waxa gala laba dalo siman oo isku beegan baa gala maanta aqoonsiga caalamiga ah dawladdeena ictiraaftay ma jirto heshiiska markaa maanta la leeyahay military base baa la bixinayaa inagoo ayaaba la gelaynaa heshiis waxa gala laba qof oo miyir qaba laba dalo oo miyirkooda qaba oo maankooda qaba oo aqoonsi caalamiga ka dhaxeeyo oo siman maanta kaasi halkan ma yaalo waxay ka dhigantay macnawiyan dalku haddaanu aqoonsi lahayn ciidan kasta oo shisheeye oo yimaada dal la qabsaday buu noqonayaa dalkani taasina dalkan dib badan baa loo soo maray horena waa loogu dhintay maantana ciidda iyo calanka waa laga difaacayaa nin walo ay arrintaasi khusaysaa ha ku biyaacabo dhulka badda iyo hawada Soomaaliland iskama soo gali karaan ciidamo dal aan aqoonsanna ma soo gali karo 12 bisha laba fadhi baa dhacay labada gol ay isugu imanayaan waxaan xasuusinayaa golayaashaasi oo muddo dhaaf ku fadhiya meesha mala qaar aan dhaaran kuma jiraan haddii ay jirto dhaartaasi waxa la cidhibtiina u tuudha inta wax la idin dhex keeno haddii la idinka saxeexo nasiib darro weyn bay ku noqonaysaa dhaartuna ilaa aakhirada ka hari mayso afar toddobaad mukha iyo baabalmandab waxa isku haystay nimankii xuutiyiinta ahaa iyo dawladahan Imaaraadka iyo xukuumadda Yemen ee ay taageeraan agteeni ayaa xulcaysa dagaalka waxa laga yaabaa inuu innakana inagu soo fido kolkaasaynu weliba saldhig aynu siinaynaa mid ka mid ah quwadahan meesha iskaga soo horjeeda waxa weeye waynu wiigan oo kaliya xuutiyiintu waxay gantaalo ku rideen dhowr meelood oo Sacuudiga ah waxay haystaan gantaalo ridada dheer kuwa la yiraahdo ee ay Iran siisay oo gaari kara ilaa 800 kilomitir waxa weeye Berberi waaba duleedkooda waxa weeye u daahi maayaan haddii ay halkaa ku ogaadaan in laga sameeyay saldhig iyaga lagaga soo duulayo sida day qorshuhu yahay kolka wax la dhaafsanayo ay xukuumaddu dhaafsisay ay ku helayso saldhigan ay bixinayso ilaa imika dadka uma sheegin kaba badna lacag yar oo qof la siiyo amba dhowr qof taa inaynu ku doorsano ammaankeenii iyo nabadgelyadeenii iyo madax bannaanideenii ma ogolaanayno waxaan garanaya saldhigu wuxuu yahay sidaa Suudaanku sheegay horta laba wadan oo la ixtiraafsan yahay inakuna maba haysanaba awoodda aynu ku saxayno saldhig military oo wadankeena la soo dejiyay sidaa daraadeed wax dhayal ku bixi kara ma aha waxa la yiraahdaa wax exclusivity la yiraahdaa jiro tuuga oo waa maxay waxa weeye wadanow hasa sheekho wada loo ixtiraafsan yahay annaka agreement noola gal Imaaraadka oo annakuna markaasi wax yar oo memorandum understanding la yiraahdo ma isfahan la yiraahdo anu Soomaaliland ka saxan cawaaqib xumada ka iman doonta
saldhiggaasi halkaa laga bixinayo wax alla waxaynu ku doorsanayno oynu gudubtaa u gelayno oo abudabi ay noo qabatay oo carab inoo qabatay ilaa maanta ma hayno ajnabi ku yimaada qarad uu leeyahay uu doonaya inuu nagu furiyo dee mar walba ma dhaanraac baynu noqonaynaa ma inakunbaa un maaragta un layna jiidanayaa war waddankan uma baahna dab la geliyo qori quroo laga soo tuuro baddaasaa gubaya haamahaas oo dhan maynu reserve sii samaysan meel waxa la geliyo maynu sii samaysan war maynaynu isgubnaawun baynu dee ku fikeraynaa inaynu isbaabi'inno waxaanuna wax suuro gelaya maaha hala joojiyo aniga ila tahay waxaa la sheegsheegayo waanu ka soo horjeednaa dalkayaga oo calan kale laga taago oo aanaan xukumin oo xerihiisa aanaan xukumin oo ciidankiisa aanaan xukumin nooma iman karaan nalama joogi karaan ma wareejin karo dalkayaga cadow ma soo amaahan karo waxaanu ku jiraa nabad waxaanu arki jiray dawladoo nabad ka hadlaysa nabadgelyadii hadmay dawladdu tuurtay ciidamo shisheeye iyo dal shisheeye iyo dad shisheeye dab qarxaya ay dhex dhigtay ummaddii haddii aanu shicibka wakiilka nahay haddaan odayaashoodii nahay haddaanu salaadiintoodii nahay ma ogolin